sida uu qorayo wargeyska New York Times madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa amar ku bixiyay in weeraro xagga cirka lagu qaado bartilmaameedyo ku yaala dalka Iran balse go'aanka ayuu si lama filaan uga laabtay markii diyaaradihii duqeynta fulin lahaa ay hawada gaareen sida oo kalena maraakiibtii ay isku diyaariyeen howlgalka lama oga sababta ka dambaysa go'aanka madaxweynaha Mareykanka balse wargeyska New York Times waxa uu sheegayaa in go'aankiisa joojinta duqeyntu aysan la qabin wasiirka arrimaha dibadda Mark Bombe iyo la taliyihiisa amniga John Bolton ma jirto cid si rasmi ah uga hadashay dhacdada iyo waxa dhacay balse New York Times waxay sheegtay in aan la codsanin in la joojiyo daabicista warka sidii caadi ahaan jirtay xiisadda Mareykanka iyo Iran cirka ay isku shareertay shalay markii Iran ay soo ridiyay diyaarad kuwa wax basaas oo Mareykanku leeyahay taas oo ku fadhida $130 milyan wararku waxay sheegeen in meelaha uu Trump in la weeraro ay ka mid yihiin xarumaha raadaarka Iran iyo kuwa kale oo military ahaan muhiim ah Iran waxay ku hanjabteen isdifaacaysa isla markaana ay iska gurgurtami doonaan arrimaha qaar gudoomiyaha aqalka Congress-ka ee Mareykanka Nancy Pelosi ayaa sheegtay in Mareykanku uusan diyaar u ahayn dagaal la gala Iran xilligan waxaana madaxweynaha ugu baaqday inuu ka digtoonaado xaaladda cakiran ee uu cirka sii gelinayo hogaamiyaha Iran ayaa sheegay in tallaabada madaxweyne Trump uu qaaday ay ka dhigan tahay mid walwal xoog leh gobolka oo dhan u horseedaysa waxa uu sheegay in haddii weerar lagu soo qaaday gabi ahaanba saameyn xoog leh uu ku yeelan doono mantiqada oo dhan amarka Trump ka laabashadiisa ilaa iyo hadda siyaabo kala duwan ayaa looga hadlay warbaahinta caalamku waa ay falanqeeyeen New York Times-na waxa uu sheegayaa in amarka oo la bixiyay ay ka dhigan tahay weerar dhameystiran loo diyaar garoobay in la weeraro meelo kamid ah gudaha dalka Iran waa halis kale oo military gobolkana waxay u horseedaysaa xaalad laga argagaxayo mid kamid ah falanqeeyaasha arrimaha gobolka Bariga Dhexe Mareykanku ilaa iyo 32 saldhig military ayuu ku leeyahay gobolka Bariga Dhexe halka Iran ay ku kooban tahay oo kaliya dalkeeda taasina waa halis kale ciidamada xaris jamhuuriyiinta ee loo yaqaan xisbiga gacanta ku haya ee kacaanka Iran waxaan la aqoonin tallaabada ay sameyn doonaan la taliyaha amniga madaxweynaha